ducooyinka oo ugu fiican oo akhriso kartid tobankan maalmood oo laylatul qadr. ducada koowaad waxa waaye Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. ducada labaadna waxa waaye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. ducada saddexaadna oo fiican ina ku celcelisid waxa waaye Allahumma hdini fi man hadayt wa aafini fi man aafayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma a'tayt wa qini sharra ma qadayt. saddexdan duco ku celceli. tan labaad, ducooyinkaaga hadaa rabtid ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kaa aqbalo, mar walba magacayaasha ugu qurxoon oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu yeera ilaahay wuxuu dhahay qul idcu Allah aw idcu arrahman ayyama tad'u falahu alasmaa'u alhusna. ama ilaahay igu yeera call me Allah aw idcu arrahman ama rahman igu yeera ayyama tad'u falahu alasmaa'u alhusna. magac walba aad dooratiin ina ilaahay ugu yeertiin magacayaasha ugu qurxan ilaahay ayaa leh. soo markaa ducaysanaysiin magacayaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay alxay alqayyuum alawwal alaakhir huwa السميع البصير الرزاق ذو القوة المتين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق من خلقه من تراب. كعل علي مقعياش إلهي سبحانه وتعالى جعليها هلك عاجس. tan afraad waxaa fiican mar walbo inaa ilaahay cafis weydiisatid markaa ducaysanaysid. nebi walbo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka codsadeen oo weydiiyeen waxay ku bilaabi jireen ilaahayow icafi. nebi suleymaan wuxuu dhahayaa qaala rabbi ighfir lii wahaba lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi. rabbiyow icafi iyo mulkiyo aana weligaaga qof siinin ilaahayow isii. marka hore wuxuu ku bilaabay ilaahay oo icafi kas qof oo perfect ma jiro. marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala cafis weydiiso. marka ilaahay cafis weydiisatid magacayaasha ugu qurxoon ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu yeera. markaas ka bacdi weydiisa ilaahay waxyaalaha dhanaa rabtiin fi dunya wal aakhira. haddana markaad ducaysatiin duco walbo waa inaa ku dhamaysid صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وعلى أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يددك هرودن أو الدين تأهد هيسنا نو كانن أو دين تفافيان إلهي سبحانه وتعالى قبل قوذ إنه أبركيو. دعوة البهدا إنتاس كل ميسد اسبدل وين أيا أركيسا بإذن الله تعالى.